السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذن سلامي صومالي دمانتيد ملكستو جوجتين إن مدى يوتيوب كم قناة إن سأوجري أقول مركو حاجة كلا لقينا أنت هذا كم قناة إن كسر هذا channel كيجا ماما ماجد official هرت أنت هنا برنامج كي جوده أقول المحارمة إن channel كا subscribe إيه سارتين أو محاكل هاي like إيه سارتين إيه share جريسين يقرب استاجتين إن قفل بمانتو قرب إذن كي بهاي أم بقرب استاجتين أولينا marka kasoo tagno inta marka kasoo tagno horta Soomaaliyeey waxaa rabaa inaan idin la wadaago qisooyin markaa maqashiin aas dhihi doontiin qofkan macquul ma tahay laakiin aan kuu sheegay inay macquul tahay sababta ay macquul ku noqotana ay tahay wax adduunka ka dhacay xaqiiqiyan xataa aniga hadda kula hadlay maxaan ku dhahaa aan dhihi karo goobjooga oo ahaa ma dhihi karo laakiin dadaan aqaano ay ku dhacday ma fahantay marabo inaa qof magaciisa meeshaan ka sheego laakiin qisadan waxay ka dhacday dalka Masar ay ka dhacday gaar ahaan magaalada Qaahire ay ka dhacday waxay ku dhacday dad Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed waxay ku dhacday waxa barnaamijkaas sameeyeen waxaan dhihi karnaa waa ayadana waa gabar Soomaaliyeed marka isheeg lagu leeyahay qisa dhacday waxaa la rabaa marka qisa sheegayso inay wax macquul tahay inay meel wax ka dhaceen ay tahay oo xaqiiqo ay tahay inay wax la qaadan karo marka bulshada soo bandhigayso walaa qisooyin xataa waxa jirta aan la qaadan karin laakiin haddana xaqiiqo laakiin way kala duwan yihiin wayna kala xanuun badan yihiin qol kulay ninkay ku dhacdo uma dareemi kara xanuunkeeda marka maxay ahayd qisada waxay ka dhacday dalka Masar ka dhacday waa saan idin sheegay waxayna ku dhacday wiil Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed magaciisa ma rabo inaan idin la wadaago laakiin insha Allah waxaan rabaa inaan xoogo bal inaan wax idin kaga sheego wiilka sida wax ugu dhaceen aniga maadaama wiilka family ahaan isku xigno haddana maxaa ku dhahaa waa wax aan amar u qaba inaan ka sheekeeyo la inkastoo magaciisa aan diyaar u ahay inaan halkan ka sheego asagana una raali ka yahay laakiin waa waxaan amar u qaba inaan ka sheekeeyo sababtoo ah dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ama wiilal badan oo adduunka jooga la rabo laga yaabaa inay ku dhacdo hadhowna ay dhahaan macquul maaha adi xataa hadda marka soo gaarto waxaa ii doontaa macquul maaha maxay tahay waaye qisadan waxaa waaye wiil iyo gabar baa isqabi dad isdoontay oo maxay ahayd la siiyay oo ismehersaday oo aroos isku dhigtay oo haddii dana yaraas isku dhigan adigu waa un dadkii dhalay isku darsadeen oo yacni isdoortay ayagu iscalmaday kadibna la siiyay muddo 12 sano wada noolaa marka 12 sano wada noolaayeen dadkaas maxaa dhacay kabacdi waxaa dhacay gabadhi waxay dhashay 5 caruur ah 5 caruur oo weliba wiilal ah dhashay marka 5 caruur dhashay oo wiilal hataa wiilasha yani caruurta xaqiiqiyan marka la fiiriyo hal cunug oo aabis oo korto muusan ku jirin ayada hataa cunug ay kuma jirin oo maanta lama dhahay hataa iyadu way gaala la dhahay maanta kuma soo jirin maxay ahayd marka ilaahay amarkiis ilmihii 5 ay marayaan yani waa iska taqaana nimanka Soomaalida xoogoo ay aqal caagan u haysto wuxuu go'aansaday inuu gabar kale guursado gabadha marka oo xaaska oo weyn oo caruurta 5 dhashay aan ka sheekeynayo waxay ahayd gabdhaha aroosyada aado xafladaha aado fanaaniinta soo dhaweeyo yani asxaabta outinka aad ugu dheereysay ahayd waxaa dhacda marka inay gabadhii maxaa ku dhahaa mar walba ay outin aado ninkeeda guriga imaado kasii maqan tahay caruurtii iyadoo ka maqan ninku oo mar walba guriga imaado caruurtii iyadoo ka maqan uu maxaa ku dhahaa reerkii uu mar walba la kulmo laakiin una wax dareen xaasiisa oo dhibaato una u qaadan yani kalsooni jirta awgeed oo isdhaha iska dhaaf waqtigaas ka soo qaadato maalmaha kamida gabadhi wuxuu soo bartay ninkii inuu aroosaayo xoogo aday muran yara dhacay kabacdi waa la isfahmay waxaa la isku fahmeen in reerka la wada dhaqdo markay intaas dhacday oo gabadhi adigu maseertiri wax la siiyay oo reerkii la dajiyay oo gabadhi kalena la soo guursaday oo guriga la keenay waxaa dhacday gabadhi kale inay maxaan ku dhahaa muddo 5 sano markii wada noolaayeen wiilkii gabadhi kalena ee markaas 2 caruur ku darsato 7 cunug ay marayso maxaan ku dhahaa gabadhi dambe ayna waxba dhalin hadda ninka reerkiisa waa jecel yahay wuuna u baahan yahay Soomaha wuxuu ku dhahay maalmahan kamid aboo hee dhakhtar baa laga sheegay Itoobiya waa in dhakhtarka Itoobiya laga sheego dhaqaatiir badan ay adag tageen dhaqaatiirtii badneed markay tageen wuxuu u hagaagi waayeen marka waxay maqleen dhakhtar baa ahaa wuxuu fariistay Itoobiya marka dhakhtarka Itoobiya tagay inaad tagno oo waxa waaye aan iska soo daaweeyo dhakhtarkii marka wuxuu ahaa dhakhtar dabeecad u leh inuusan dumarka kaligood daaweynin laakiin uu ragga dumarka qabaan uu la daaweeyo يعني ولا بارو مركو وحو كده أنيقا إن محاكو لها عروف الله يعطو دبا جاريسو ولا لي معاني أنيقا محاكو لها إن هذا المو لآن إما هايسو
maxaa aniga muhiim oo la iga baahan yahay waxay dhahday shuruudda dhakhtarka u taallaa waxay tahay naag uu la socon saygeeda inuusan daaweynin marka muxaram ahaana inaa raacdaa iska wanaagsan ani maadaama waddan fog u socda ilan waddanka masra laga soo baxaya waddanka etoobiya la imaanaya okay maalmo kabacdi adii sidii sheekadii ay u wadwadeen way isku afgarteen inuu ninkii shaqadii fasax kasoo qaato xaaskiisi weyneedna uu u sheego uu ku dhaho aniga xaaskaygan wadaaya maadaama aysan caruur haysan xoogo inay markaas adiga qof ay sir la wadaagaysa qofta ma jirto laakiin laga yaaba inay xoogo utun ay gashay yacni dhawaan qof dhibaato sameeyey mogtahay balse xaaskiisa agtiisa waxay ka ahayd masaajid yacni masaajid waxaan ka wadaa yacni wax dhibaato lagalama kulmo masaajid waa meel yacni xafidan oo ilaalsan ma fahanti marka asaga kalsooni badan uu ku qabay caruurtiisa kale inkastoo caruurta ata aniga qaar aan arkay laakiin markaa runta ku idin sheego aynan cunuga aabaha u ekayn hooyadan u ekayn haddana suurad aabaha ay ka foolxun yihiin hooyadan ay ka foolxun yihiin haddana ayaga dhab iskuma eka halba halka kale uma eka hal indhaha xataa uga eko ma jiro waa iska qadar eebe ilmo hooyo ay wada dhashay inay isku ekaadaan macquul hooyo ilan wada dhashay waa isku ekaan karaan lama diidi karo haddana iskuma eka marka wax ka shekeena ma jiro inkastay gabadha iska socod badneed ee haddee rabta habeenada qaar meelaha intaa ay sheegeen baabuur ah kasoo raacaan waay ama jaam inta galay heblo la seexda iska dhihi jirtay marka waxa weynba looma qaadan jirin ninkana nin iska qabow ahaa runta kaan kudsho oo iska ahlu iimaan oo iska maskiin ahlu salaad iska ahaa marka alxaasil gabadhii waa la kaxeeyey waxaa loo geeyey maxay ahayd dhakhtarkii markii loo geeyey gabadhi waxaa lahay gabadhan dhakhtar inaa baartid waaye maadaama ay 5 sano aan wada nooleen ina caruurna ii dhalin waa inaa gabadhan baartaa dhakhtarkii wuu soo booda wuxuu dhahay horta ani intaana gabadha baarin ka hor ninkaan baaraa waa inaan adig ku baaraa wilka wuxuu ku dhahay anigaa igu qaldamaysaa 7 cunug aan leeyahay wuxuu ku dhahay aniga qisooyin badanaa usoo joogay oo wadamadaas dhakhtarku waa dhakhtar marba 6 bilood wadan jooga marka wadamadaasaan in badan joogay uu dhahay aniga inaan 6 bilood wadan jooga maxaan ku dhahaa kuu sheegaya xaqiiqooyin badan iyo dhibaato badan aan soo arkay dad 15 cunug ama 20 cunug qabo waxaan soo arkay aanan dhalin aan waxba ku lahayn inay dhaleen oo haystaan markii saas ay dhacday dhakhtarkii wiilku wuxuu ku dhahay asagoo cagajiida wuxuu ku dhahay okay si kaybaar adiga aniga waa igu qaldoomaysaa laakiin aniga nin 7 caruur lahaan ahay weliba 2 wiil iyo 5 gabdhood 5 wiil iyo 2 gabdhood baan qabaaye maxay tahay waa kaasaa twinde meesha la iska soo raacay dhakhtarkii ilaahay amarkiisa wiilkii woo baaray waxba muusan soo sheegin dhakhtarkaas marka caadiisa waxay tahay inuu 6 bilood kadib soo jawaabo gabadhii dhacaanku ka qaaday wiilkina wuu ka qaado wuxuu ku dhahay okay dawladaha dadka si isticmaala gurigeena iska aada taariikh hebel ama bil hebel wadankan markaan kusoo laabto ama wadan kale aan tago anaa idin soo wici doono insha allah markaas kadib dhacaankiina jawaabtiis qaadan doontiin ilaahay amarkiisa dhakhtarkii wadankii wuu kasoo tegay dhakhtarkii wadankii wuu kasoo tegay wiilkiina wadankii waa kasoo tegay gabadhii ayagoo iska normal ay gurigooda kusoo laabteen because wiilku wuxuu aaminsan yahay gabadh dhibaato qabto oona asagoo dhibaato qabin laakiin maxaa dhici doona wax fajac ayaa dhici doono qiso kaa fajiciso aa dhici doonto markii adiga muddo la joogay oo maxaa ku dhahaye gabadhii 6 bilood la gaaray gabadhii hadda waa ogtahay qof ilmo raadisa problemkiisaas ka badan ilaahay inta ilmo inta qabtana allah u barakayo intaan qabin allah siiyaan dhihi karaa marka way soo baxeen markay soo baxeen waxay imaadeen dhakhtarkii usoo laabteen waa sidii caadada ahayd jawaabtii loo soo bixiyay waxaa lagu dhahay niihow gabar yahay wax dhibaataa oo qabto haba yaraatee ma jirto okay maxay tahay waay ani ilmo u dhali lahay 5 sano guriga iska joogaa xataa ani weligii uurma yeelan seex u jiraan wuxuu dhahay maadaama uu ii sheegay problem uu jiro weyn waxaan rabaa adiga inaa maxaan ku dhahaa banaanka u baxdo oo aan siigaaga la hadlo wiilka woo jeesteesto wuxuu dhahay dhakhtarkan feer ihraantu iga sugaa cawada muxuu eegan waa dantu iga leey maxay tahay ninkan ilmahan mar alinba maba yeelaayo ilaa haddana lamaba maqashin karo wuxuu ku dhahay saaxiib adiga horta ilmo wax lagu dhalaba kugumaba jiraan tootale war saax ku dhaceen war ninkii oo fafakado waa dilaa ninkan camal aniguba igu xadgudbaa sumcad nin rag oo intaasoo ilmo dhalaayo lagu dhahay wax ma hada dhalin xanuun waaye wuxuu ku dhahay anima hadda ilaadahay in ishak wax ma hada dhalin say ku dhici kartaa may waxa dhashay ma jirto dhakhtarkii ninka qortiisa galay hirig waa la kala furi waay adii muddo 2 bilood oo qortiisa ugu jireen dhakhtarku wuxuu dhahay intan uma socdo wiilkii fiiso hindiyo qaatay hindiyo tagay oo soo baar sidoo kale lagu soo dhahay marka qisadan waxay kaaga yaabinaysaa nin dhanoo 12 sano naag la joogay 7 caruur leh haddana saaka lagu dhahay wax aad dhali kartaba lama arko waxna ma dhashid bis wiilkii adiga alxaasil nin iska dhiban oo rafaadsan waaye oo awlaadiisa laga inkiray buu soo ku hakan oo soo booday dalka Jarmalka ku tagay fiiso qaatay fiiso Jarmalka u tagay oo u tagay wadan dhakhtarka Jarmalka u tagay waa la baaray waxa lagu dhahay saaxiib adiga
waxa ilmaha lagu dhalaba maba kugu jiraan tootale ilma ma dhalin weligaana ma dhalin haddana ma dhali doontid bis adugu iska soo tagay xajku iska yimid iska ducaystay cimro iskaada iska soo ducaystay wuxuu dhahay aniga ma aqaana meel wax iga soo maageen dadkan way isoo tashteen camal islaantiisi waxna ma u sheegin ilaa halaas xaaskiisa labaadna waxba sheegin tii korisana waxba u sheegin wuu iska soo baxay ilaa markiis markuu iska soo baxay wuxuu imaaday gurigiisii wuxuu go-aan ku gaaray inuu dhakhtarka u laabto oo ku dhaho okay 7 caruuraan leeyahay xaaskaygana haddaan waxaan u sheego iga xumaanaysaa oo iskumaho waxaan aa sheegaysa dhakhtarata ilaahay ma tigid ilaahay unbaa wax walba ka warrami kara xaqiiqda adigu waxaa ogtahay ma jirto waxaa u baratay unbaa taqaanaa oo cilmiya ma fahantay marka see ilmihii xaaska ku keenaa waa wuxuu dhahay waxaa ku dhahdaa ilmaheena dhakhtarkii wuxuu dhahay maadaama aad gabadhan ilmo lahayn oo keliyaha xanuun ay qabto xaaskaaga kala xanuunka inay gaarsiisaa laga yaabaa adi barnaamijkaas uga soo sheekeeyay waa inaa xaaskayga ku kaxeeyaa oo keliyaha xanuunkaas ay gabadhaas nagu daarato inay nagu daarataa laga yaabaa aan kaa soo daaweeyo muxuu ka damacsiyaa marka mataqaana inuu caruurta DNA ka qaado oo fiiriyo caruurtii meesha geeyo DNA laga qaaday qisada dhacday xanuunkeeda waxa ugu siiyaa badan caruurta hal aabo ma wada dhalin gebigood aabo gooniyaa dhalay mid kasto aabihiis gooni waayo waa sababta aan kule ilmuhu iskumaba eka horta qaaraa madow qaaraa brown qaaraa cadaan ilmuhu habarta uma eka oo bahan ani ilmahaas total gebigood waa arkay dhammaantood laakiin ani been kuma sheegaya markaas ay qoobjoog qisooyinka muu ahayn laakiin ilmaha anu caado aqaana cidda nolosheeda caado aqaana kadib haddana sheekada ma maqlay marka waxaa la dhahay saaxiibka adiga maba barnaamijkaas aniga dadka ishada si fiican hata gabadha iskuma naqaano oo gabadha maba isnaqaano aniga ayada weligeena iskama soo horbixin laakiin caruurtaas xoogoo yaro waa isku dhaweyn waana arki jiray ma fahantay marka ciidaha ka wareedheela meelaha waan arki jiray laakiin aniga weligeyba waa ka shakiyay because wax laga shakiyay ma reer dhaqma meel degan wax laga shakiyay ma ciyaad bilaa marka gabadhii waxaa dhacday in maxaa ku dhahaa oo ninkii DNA ilmihii laga qaaday DNA 3 wadan oo ninkaas oo maray markuu fiisaha qaadanayay 3 wadan oo DNA oo ka maray 3 wadan buu haddana wuu ku laabtay caruurtina wuu ku celiyay xaaskiisina wuu ku celiyay ilmihii waxaa la soo ogaaday inayna asagana dhalin ayadana asaga inuu dhalin DNA-gana markii laga baaray inuu hal cunug ku lahayn hal waa hada hal kuma laha ilmahana isku aaba ma aha gebigood nin kasto waa cunug gooni iyo dhiigiisa nin kasto waa cunug gooni laakiin hooyaa wada dhashay ma fahanti marka alxaasil wiilku waa waashay isla hadlay ganacsigii businesskii noloshii wuu ka dhex baxay masaajidaha qaahiro iska wareegi jiray marba meeluu iska seexan jiray maxaa ku dhahaa kitaabkaas dushiisu ku hurdi jiray alxaasil hadda waxaan xaqiiqda aan ku haa qisadan inuu wiilkaas waalan yahay wax uu galo iyo wax uu gudan ala arag xaas hore iyo xaas daba midnan uuna fara ku haynin oo hadda ay xanaanayso eedadiis aabihiis ka dhintay ee hadda gacanta ku hayso nin dhan oo ganacsada oo businessman oo maxaa ku dhahaa nolol yar sare ku noolaa oo ahaa baawurkiisa cad iska watay maxaa ku nolosha ulma marka qaar bay is dhahdaa adiga horta dhakhtarka in la aadaba ma habboona sababtoo waxay tahay wiilkaas hadduu gabadhaas kala guursan lahayn caruurtiisu asaga aabihiis u ahaan lahaa aabuhu u ahaan lahaa intaas dhibaatana muu mari lahayn haddana hadda waxaa qiso kaloo jirtaa waxay tahay ninkaas isagoo waalan oo dhibaataysan haddana caruurtaas uu jecel yahay agtiisa hal xabo wax looguma sheegi karo mana la dhihi karo ma ada dhalin ilaa hadda asoo xanuunsan ilmihiisa hadduu magaciisa hal xabad soo qaado waa kana meel caafimaad uga imaado mataqaana kusoo degaya marka awlaadda horta waa iska cajiib qisooyinkana qaar la yaabaysaa maxaa ku dhahaa awlaadana markaa si u fiirsid dadka nimanka waxay jecelin la ilmaha inuu egyihiin hadduu waraabo egyahay xataa inuu anigu eegi jecel laakiin aniga waxaas dhaha marka qarawayda aan waxaa jeclaa lahaadeen in ahaa lahaadeen naagteeda qurxoonta inuu cunugu ay kacda laakiin nimanka waxaa la si u fulxin inuu cunugooda u kaada iska jeclihiin marka qisadaasaan maxaa ku dhahaa idinkaga sheekeynaya cawada soomaalida dhalinyarada soomaalida qaar laga yaaba inay sheekay ilmooda qaar way keenay ma jiraan niyo caadi iska dhigaan waxaas magawadi ninkaaseti waa nin maskiin oo qisadaas dhibaatadaas ku dhacday waana amar ilaahay xaggiis ka yimid laakiin inkastoo ilaa hadda ani laftigeena aaminsan inuu wiilkaas ilmahaas dhalin sababtoo 12 sano wax yar maaha yaa ninkan 12 sano ilmihiis kursanaya oo u dhibanaya oo waxaan ku dhahaa nolol rafaasan iyo mid raaxab loo maray marka see u dhahaa marka cawada ani wiilkaas ilmihiis lama dhihi kariya marka Soomaaliya qisadii aan ka sheekeynaa insha Allah intaas ay ku eg tahay insha Allah taala qisooyin kale oo normal ah oo yaani xaqiiqo ah insha Allah idin sheegi doona hadda jaaniskeyga intaas uu ku yahay insha Allah waxaan kaga tagayaa channelkeyga inaad subscribe ii saartiin walaashiina aha ani walaashiina Soomaha gabdhaha Soomaalida oo 24 hours subscribe ku saaraysiina kamid ahay gabdhaha Soomaalida oo hore u kicinaysiina kamid ahay walaashiina ahay garabkiina ahay waxaan rabaa marka inaad videogeyga marka qof kasta markuu soo gaaro inaad subscribe ii dhahdid oo maxaa ku dhahaa ii saartid maxay ahayd ii saartid
share ay dhahdid oo like-ta ii saartid rabaa insha allahu tacaala qisooyinka kuwaan ka cajiibsana idin haa waa idiin soo gudbin doonaa insha allah jaanisyada labaad